shaqaalaha iyo hawlwadeennada kala gedisan ee baarlamaanka, xubnaha beesha caalamka iyo safaaradaha, siyaasiyiinta iyo waxgaradka, ismada, cuqaasha, culummada, haweenka, dhallinyarada iyo qaybaha bulshada rayidka ah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. mudanayaal iyo marwooyin, mudana guddoomiye, waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta isugu wada nimaanno madashaan muhiimka ah ee furitaanka kalfadhiga 45aad ee golaha wakiiladda. waxaa laga joogaa muddo 4 bilood ah markii halkaan aynu isugu nimid kalfadhigii 44aad. muddadaas intii lagu jiray waxaa dawladda u qabsoomay howlo badan oo muhiim ah dhinacyada siyaasadda, amniga, dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada. waxaan idin ka siin doonaa warbixin kooban anigoo ogsoon in guddiyada baarlamaanka ay kormeerro ku tageen gobollada ay ka dhegaysteen warbixinno hay-adaha fulinta ee dawladda. mudanayaal iyo marwooyin, waxaan mar kasta xusid mudan sida dadka reer Puntland ugu baraareen midnimada iyo dhismaha Puntland oo yegleeliddeedii hadda laga joogo 21 sano. waxaa maanta haysannaa amni wanaagsan, nidaam dawladeed oo hormuud u ah Soomaali inteeda kale, adeeg bulsho oo ka socda daafaha dhulka Puntland hoos yimaado, bulsho garaadkeeda siyaasadeed kobcay, kaabayaal dhaqaale oo tis qaaday. intaasoo horumar ah oo laga dhaxlay dhismaha Puntland waa wax Ilaahay loogu mahadiyo oo ay tahay in lagu fara adeego, horena loo mariyo. Puntland waxay dhul ahaan iyo dad ahaan ka weyn tahay dalal badan oo caalamka ka tirsan. shacabka Puntland iyo madaxdii kala duwaneed ee soo maamushay 22 sano ee la soo dhaafay waxay ku ammaanan yihiin inay iyaga oo keligood isku tashanaya ay tabantaabiyeen maamulidda dhulka baaxadda leh, duruufo adagna ay marar badan kala soo gudboonaatay. Puntland maanta hormuud iyo labeen waxa u ah inteenna maanta nool iyo inta madashaan ku kulansan. waxaa sidaa oo kale taariikhdu xusi doontaa wadar ahaan iyo qof ahaan sida aan u jihayno mustaqbalka Puntland, annaga oo mar kasta garaadka ku hayna taariikhda aan leenahay iyo mabaadi'dii loo aasaasay. annaga oo ka duulayna soo noolaynta maqaamka Puntland iyo inay tahay in mar kasta da'yarta iyo shicib weynaha lagu baraarujiyo taariikhda Puntland. waxaa si guul ah noogu soo qabsoomay maamuuska 21 sano guuradii ka soo wareegtay aasaaskii dawladda Puntland ee 1 Agoost, kaas oo laga dheehan karo baaxadda maamul iyo cudud ciidan ee Puntland leedahay. Puntland waxaa loo aasaasay ilaalinta wadajirka dadka ee reer Puntland. waxaana aad ugu bogaadinayaa uguna hambalyaynayaa shacabka iyo hormuudka gobolka Sanaag oo nagala shaqeeyay in maanta 99% dhulka iyo dadka reer Puntland ee gobolka Sanaag ay si buuxda ugu jirto gacanta dawladda Puntland. waa guul iyo tusaale taariikhi ah oo waxtar weyn u leh wadajirkeenna iyo midnimadeenna. waxaa naga go'an oo daacad naga ah dadaalna aan ku bixinaynaa ilaalinta wadajirka iyo soo celinta dhammaan dhulka Puntland oo aan ku rajo weynahay inuu dhaqso u soo gacan galo iyo maamulka Puntland. mudanayaal iyo marwooyin, Puntland waxay qayb ka tahay dawladda Soomaaliya oo ku dhisan nidaamka federaalka ah, ayna muhiim tahay inay iskor joogteeyaan labada heer. haddaba marka la garowsado in waddankeennu ku jiro dib u dhis, waxaa lama huraan ah in aan laga baqin in la doodo ama arrimaha qaybtood lagu kala aragti duwanaado. Puntland waa maamulka ugu faca weyn maamulada dalka. waxay mar kasta hormuud u tahay arrimaha dhammaystirka dastuurka, kaasoo ay u aragto in haddii la dhammaystiro laguna shaqeeyo uu xallin karo khilaafaadka inta badan soo kala dhex gala dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah. waxaa muhiim ah in la fahmo hannaanka federaalka ee ku salaysan yahay dastuurka qabyada ah ee lagu heshiiyey, kaasoo khasab ka dhigaya in arrimaha waaweyn ee masiiriga ah labada heer ee dawladeed ka wada tashadaan. sidaa daraaddeed waxaa laga maarmaan ah in laga wada hadlo lagana heshiiyo arrimaha la xidhiidha
dib u eegista dastuurka qaybsiga khayraadka iyo deeqaha samaynta sharciyada doorashooyinka batroolka iyo maamulada maaliyadda iyo waxyaabaha kale ee muhiimka ee masiiriga ah ee u baahan in laga wada hadlo ee dhigaya qodobada dastuurka ku cad dhinaca kale waxaa laga maarmaan ah in doorashada ay dalka ka dhacdo xilligii loogu talagalay iyada oo hannaanka loo marayo uu yahay in heshiis siyaasadeed ay ka gaaraan dowladaha federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah haddii hannaan iyo sharciyad aan heshiis lagu ahayn la qabto waxay keenaysaa in doorashadaas ay qabsoomi weydo waxaan u baahannahay in si wada jir ah aan ugu wada shaqayno sidii ay ku qabsoomi lahayd doorasho dhacda wakhtigeedii laguna kalsoonaan karo hannaanka iyo sharciyada loo marayo sida halka guddoomiyuhu ka sheegana dowladda puntland oo wada jirta iyo shacabkeedu waxaa la gudboon inay marxaladda soo socota ay ka yeelato aragti arrimaha doorashada ee soo socdo si loo ilaaliyo qabsoomidda doorashada iyo in la gaari waayey doorashadii qof iyo cod ah wixii looga gudbi lahaa taasna waxaan rajaynaynaa iyadoo xukuumaddu hoggaamin doonto doodo arrimaha ku saabsan iyo shaqooyin la xidhiira go'aanka midaysan ee laga qaadan doono in dhowaan aan u howlgeli doono qaybana laga bilaabay puntland marar badan waxay juhdi badan gelisay sidii dowladda federaalka ee hadda jirta ay inoogu wada adeegi lahayd una tisqaadi lahayd waxaan ugu dambayn shirkii madaxda dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ay ku yeesheen garowge 5 ilaa 11 May 2019 waxaa weli muuqata kala aragti duwanaansho u dhaxaysa madaxda labada heer haddaba waxaan ku baaqaynaa in ay puntland ay diyaar u tahay inay qaybteeda ka qaadato xallinta khilaafaadka ragaadiyey horumarka dalka iyo in la helo xasilooni siyaasadeed iyo madal wada hadal oo furan si caqabadaha taagan iyo kala aragti duwanaanshaha looga wada hadlo isla markaana loogu gudbo heshiis iyo afgarad rasmi ah in laga gaaro mudanayaalay marwooyin dowladda puntland waxay kaloo soo dhaweynaysaa dadaal kasta oo lagu raadinayo midnimada Soomaaliyeed iyo taabagelinta dowladda federaalka ah taasoo loo maraayo sida uu qabo dastuurka qabyada ah ee federaalka haddaba waxay dowladda puntland cadaynaysaa mowqifkeeda ku aadan wada hadallada dowladda federaalka iyo maamulka Soomaaliland si xal waara looga gaaro waa in wada hadallada dowladda puntland qayb mug leh ka qaadataa maadaama khilaafka xuduudeed uu kala dhaxeeyo maamulka Soomaaliland si waafaqsan qodobka 53 farqadiisa labaad ee dastuurka qabyada ah ee dowladda federaalka mudanayaal iyo marwooyin waxaan safar gaaban ku tagay wadamada Itoobiya iyo Imaaraadka Carabta kaas oo ujeedadiisu ahayd raadinta maalgashiyo caalami ah iyo xoojinta xiriirka wadamada daneeya arrimaha Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya intaan safaradaas ku guda jiray waxaan la kulmay qaybo ka mid ah madaxda wadamadaas shirkado caalami ah oo ay ka mid yihiin madaxweynayaasha kililka Soomaalida iyo Oromada ganacsatada Itoobiyana sanduuqa maalgashiga Abu Dhabi iyo shirkadda DB World taas oo gacanta ku haysa maamulka iyo ballaarinta dekedda Boosaaso arrimahan DB World sida goonida uga hadlay waxay ahaayeen caqabadaha keenay dib u dhaca mashruuca ballaarinta dekedda Boosaaso iyaga oo ka garaabay dib u dhacaas aanu ku heshiinay dardargelinta mudaysan oo waxqabadkeeda hore la arkayo ka hor dhamaadka sanadkan wadamada Itoobiya iyo Imaaraadka waxay xiriir ganacsi oo ballaaran la leeyihiin dalka Soomaaliya guud ahaan iyo Puntland gaar ahaan haddaba si loo horumariyo xiriirka ganacsi waxaa ganacsatadii badneed ee aan kula kulannay wadamadaas ku casunnay shirweynihii maalgashiga Puntland iyaga oo ay dhammaantood ka soo qayb galeen shirweynahaas ballaaran ballanna qaadeen maalgashiyo kala duwan oo ay ku sameynayaan doonaan Puntland waxa kale oo aan safar muddo bil ah qaatay ku tagay magaalada ganacsiga ee Puntland ee Boosaaso kaasoo aan ugu kurgalaya xaaladda horumarineed mid dhaqan dhaqaale mid amni waxaana intii aan joogay kulamo muhiim ah la qaatay ganacsatada odayaasha waxgaradka haweenka dhalinyarada kulamadaas oo ay muhiimadooda ahayd isxog waraysi iyo kor u qaadida xiriirka dawladda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada si looga wada shaqeeyo arrimaha amniga horumarinta dalka waxaa sidoo kale xusud mudan shaqadii ballaarneed ee guddiga amniga gobolka bari uu ka qabtay guud ahaan gobolka gaar ahaan magaalada Boosaaso oo hadda laga dareemayo isbeddel amni oo ballaaran intaan Boosaaso ku sugnaa waxaan kulanno
waxaan kulannay magaalada ganacsatada ka socoto waxaan kula kulannay ganacsato ka socoto shirkadaha caalamiga ah oo daneeya maalgashiga kaabayaasha dhaqaalaha iyo wax soo saarka Puntland sida ayraboorka maxjarka macdanta tamarta iyo biyaha oo aan filayo in dhowaan ay ka howlgali doonaan magaalada Boosaaso iyo guud ahaan deegaanada Puntland marka ay soo dhammaystiraan daraasadaha lagu heshiiyey qaabka waxqabadka Puntland waxay u jihaysan tahay dhanka dhiirigelinta maalgashiga iyo horumarinta ganacsiga waa inaynu ka maarannaa ku tiirsanaanta kaalmooyinka bini'aadanimo una soo jeensannaa ka faa'iidaysiga khayraadka badan ee aynu leenahay si loo gaaro horumar dhaqaale shaqo abuur iyo xasilooni amni mid siyaasadeed sidoo kale waxaan bartamihii bishaan kaga qaybgalnay wafdi aan hogaaminayo Kismaayo caleemasaarka madaxweynaha Jubbaland intaan halkaas joognay waxaan la kulannay qaybaha kala duwan ee bulshada reer Jubbaland waxaana ku dhiirigelinay inay ka wada shaqeeyaan nabadda xasiloonida iyo midnimada Jubbaland mudanayaal marwooyin sidii aan kalfadhigii hore ku soo bandhignay qorshaha dawladda oo aan u qaybinay guddiyo heer wasaaradood ah kuwaas oo aan dib u habayn ku sameynay kuna koobnay 4 guddi oo kala ah guddiga amniga iyo arrimaha gudaha guddiga maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha guddiga arrimaha bulshada iyo guddiga arrimaha tayeynta iyo adeegyada horumarinta kaabayaasha waxaan halkaan idinkula wadaagaynaa waxqabadkii wasaaradaha iyo hay-adaha kale ee dawladda 4 bilood ee la soo dhaafay mudanayaal iyo marwooyin sidaan horay u ballan qaadnay waxaan dhammaystirnay magacaabista guddiga ku-meelgaarka ee doorashooyinka Puntland taasoo muujinaysa sida ay nooga go'an tahay hirgelinta hanaanka xisbiyada badan iyo qabashada doorasho qof iyo cod ah iyadoo ay Puntland muddo dheer hiigsanaysay xukuumaddu waxay xilli hore sii bilowday qabashada shirar wada tashi iyo wacyigelin oo loogu gogol xaarayo nidaamka dimuqraadiyadda oo ay ka qayb galeen hay-adaha dawladda bulshada rayidka ah iyo hay-adaha caalamiga ah sidaa daraaddeed waxaan golaha wakiilada ka codsanaynaa inay ansixiyaan guddiga si ay shaqadooda u dardargeliyaan si loo xoojiyo nidaamka maamul dejinta waxay xukuumaddu ku guulaysatay dhismaha golayaasha deegaanka ee degmooyinka Baran Xarfo Buraan Ufayn Buurtille iyo Buuhoodle waxaa siyaasad ka qaybgalka haweenka ee goboladaas waxaa siyaaday ka qaybgalka haweenka ee goboladaas deegaanada laga dhisay iyadoo 2 gudoomiye ku xigeen ay ka heleen 5 gole deegaan ee u dambeysay waxaa kale oo arrimaha maamulka daadejinta dhinac socday diiwaangelinta tuulooyinka hoos yimaada kontonka degme ee Puntland si kor loogu qaado tayada maamul ee gobolada waxaa la magacaabay gudoomiyaasha gobolada Sanaag Highland Bari iyo Gardafuur si loo tayeeyo ciidamada qaybahooda kala duwan waxaa la magacaabay guddi ka kooban khubaro saraakiil sare ah iyo xubno ka mid ah golaha wasiirada si ay uga shaqeeyaan dib u habaynta iyo tayeynta ciidanka waxaa la dhammaystiray dhismayaasha xeryaha tababarka ciidanka ee Xorgoble iyo Abqaale waxaa dayactir lagu wadaa xerada Boocama iyo Baran waxaa socdo tababarro ay ciidamadu dufca loogu xareynayo kulliyadaha Carmo iyo xeryaha 54aad Xorgoble iyo Abqaale waxaa sidoo kale la howlgelin doonaa marka ay dhammaadaan xeryaha Boocama iyo Baran waxaa kale oo qorshahoodu dhammaaday dhismaha 5 saldhig iyo dayactirka 10 saldhig booliis oo laga hirgelin doono deegaanada Puntland isla markaasna loo qorsheeyay inay helaan agab ciidan oo isugu jira gaadiid iyo qalab isgaarsiineed 4 bilood ee ugu dambeysay waxaa horumar la taaban karo laga sameeyay xaaladda guud ee ammaanka iyo siyaasadda gobolka Sanaag iyo Highland waxaa la qarameeyay lana soo dhaweeyay qaybihii ugu dambeeyay ciidamada iyo saraakiisha ka soo baxay maamulka Soomaaliland waxaan ugu hambalyeynayaa inay garowsadeen qiimaha midnimada Puntland waxaa si diiran ugu bogaadinaya cid kasta oo ka qayb qaadatay guushaas taariikhiga ah mudanayaal marwooyin si kor loogu qaado wax soo saarka iyo kobaca dhaqaalaha xukuumaddu waxay la saxiixatay Bangiga Adduunka Midowga Yurub iyo GIZ 3 mashruuc oo waaweyn oo ku kacayso dhaqaale gaaraya 12 milyan oo wax looga qaban doono horumarinta biyaha farsamada gacanta la tacaalidda oo adkaysiga abaaraha mashaariicdaasi waxay fuli doonaan gobolada Puntland oo dhan
si loo xaqiijiyo kalsoonida shacabka reer Puntland ku qabaan dawladooda waxaa si daahfurnaan u bilowday in 6 bilood mar warbixinta dakhliga lagu soo daabaco website-ka wasaaradda maaliyadda si muwaadin kasta noogula xisaabtamo haddaba waxaa website-ka ka heli kartaan warbixinta bilaha January ilaa June 2019 waxaa sidoo kale la diiwaan geliyay hantida maguursada ee dawladdu leedahay laguna keediyay hanaanka casriyeysan ee lagu maareeyo hantida dawladda maadaama aynu u gudubnay marxaladda horumarka waxaan daahfurnay diyaarinta qorshaha horumarineed ee Puntland ee 5 sano ee soo socota 2020-2024 waxaan wada tashiyo baaxad leh lala yeelan doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ah si aynu u diyaarino qorshe aynu leenahay maalgashanayno cid kasta oo Puntland danaynaysa ay inagu taageeri karaan iyadoo xukuumadaydu xooga saaraysa suuqgeynta xoolaha oo ah lafdhabar u ah dhaqaalaha waxaa dekada Boosaaso ka dhoofay 1 milyan iyo bar oo isugu jira ari geel iyo lo 4 bilood la soo dhaafay waxaa dadaal badan gelina sidii aan suuqyo cusub ugu heli lahayn xoolaha Puntland waxaa Puntland soo booqday wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada iyo ganacsato imaaraad ah waxaynu ku qanceen aqoonteena habka ay u shaqeeyaan maxjaradeena waxayna si rasmi ah inoo siiyeen ruqso aan xoolaheena ugu iibgeyn karno dalka imaaraadka markabkii ugu horeeyay ee wado xoolo loo dhoofinayo suuqyada Dubai wuxuu ka bixi doonaa caawa haddii Ilaahay madakada Boosaaso waxaa sii wadaynaa suuqgeynta xoolaheena iyadoo aan rajaynayno wadamo kale inay aqbali doonaan dhanka maalgashiga waxaa guul ku soo qabsoomay shirkii maalgashiga Puntland bishii September 2019 shirkaas oo ka soo qayb galeen 400 oo qof oo ka kala socday dawlado ganacsato aqoonyahan diblomaasiyiin iyo qaybaha kale ee bulshada waxaa ka mid ahaa 300 oo qof oo kala matalaysa ilaa 130 shirkadood oo isugu jira ganacsato Soomaaliyeed iyo kuwa caalami ah oo ka kala yimid dalka gudihiisa iyo dibadiisa sida France, Germany, Italy, UK, Slovakia, USA, Saudi Arabia, Emirates, Turkey, China, India, Kenya, Uganda, Tanzania, Ethiopia, Zambia shirkadahaas oo ahaa kii ugu horeeyay ee maalgashi ah ee lagu qabto Soomaaliya sumcadda Puntland kor u qaaday waxaa ka soo baxay in shirka lagaga dhawaaqay maalgashiyo kala duwan oo laga hirgelin doono Puntland ayna ku bixi doonto 464 milyan 3 sano ee soo socota taasoo wax badan ka tari doonto kobaca dhaqaalaha fursadaha shaqo oo abuuri doonto dhalinyarada Puntland 4 shirkadood oo ka mid ah shirkadihii ballanqaadka maalgashiga sameeyay ayaa mar hore bilaabay qiimeynta barnaamijyada ay doonayaan in ay maalgashadaan sidoo kale waxaan geynay ganacsato Soomaaliya ajaanib ah magaalada Garacad si ay u soo qiimeeyaan hawlaha dhismaha dekada ee ka socda magaalada iyo fursadaha maalgashi ee ka furan dawladdu waxay fududeyn iyo taageero la garab taagan tahay shirkadaha maalgashiga diyaarka la ah waxaa dawladda soo dhaweynaysaa ganacsatada Soomaaliyeed ee kuwa caalamiga ah inay maalgashi ku sameeyaan Puntland waxaa wafdi isugu jira dawladda iyo ganacsato oo hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka ka qayb galeen shirka Turkish Africa Investment Trade Summit oo ka dhacay dalka Turkiga waxaa sii socon doona shirarka isdaba joog ah oo lagu qaban doono wadanka gudihiisa iyo dibadiisa si maalgashiga rasmi ah Puntland uga bilowdo mudanayaal marwooyin muddadii 4 bilood ee la soo dhaafay waxaa deeq waxbarasho u helnay arday tiradoodu gaaraysa 443 kuwaas oo isugu jira 273 arday oo dalka dibadiisa ah iyo 170 arday oo jaamacadaha dalka gudihiisa ah waxaa sidoo kale deeq waxbarasho loo fidiyay ardada danyarta ah oo tiradoodu dhan tahay 2560 arday oo dhigata dugsiyada hoose dhexe ee dhammaan gobolada Puntland deeqdaas isugu jirta ka taageeridda agabka waxbarashada iyo lacagaha iskuulka si looga jawaabo baahiyaha adeega caafimaad waxaa la bilaabay dhismayaasha xarumaha dhallaanka iyo hooyada oo gaaraya 16 iyo dhismaha xarumaha wasaaradaha caafimaadka ay ku leeyihiin gobolada Mudug iyo Nugaal waxaa la dhameystiray heshiiska bangiga adduunka
oo maalgelinaya mashruuc cusub oo laga hirgelin doono 160 tuulo oo 9 gobol ee Puntland ka mid ah iyadoo aan ognahay in dalkeennu ku filnayn haqabtirka biyaha baahiyaha caafimaadka oo dhan waxaan suurto gelinay inaan u fududeyno shacabka helidda fiisaha caafimaadka ee lagu tagi karo waddanka India oo markii ugu horeysay si fudud dalka loogu qaatay iyadoo Garowe jooga aanan rajaynayno inay fursadahaas sii socdaan iyadoo aan ognahay baahiyaha biyo ee bulshadeenu qabto dhan magaalo iyo mid miyiba waxaa la qoday 4 ceel waxaa la dayactiray 15 ceel waxaa la sahmiyey 21 goobood waxaa qorshaysan in la qodo 23 ceel oo cusub iyo dayactir 15 ceel kale ah waxaa isna gabagabo maraya saxiixa heshiiskii mashruuca uu Midowga Yurub maalgelinayo oo kor loogu qaadayo biyaha magaalada Boosaaso sidoo kale waxaan doonaynaa inaan idinla wadaagno shirkii maalgashiga kadib ballanqaad rasmi ah oo aan ka helnay sanduuqa maalgashiga Abu Dhabi kaasoo maalgelin doona horumarinta korontada magaalada Boosaaso waxaa dhammaaday sahankii waxyeeladii roobabka u geystay wadada Garowe Boosaaso iyo Garowe Laascaanood dib u dhiska wadooyinka oo burbur xoogan soo gaaray wuxuu lafdhabar u yahay dhaqaalaha amniga iyo isu socodka dadka sidaa daraadeed annaga oo siinayna ahmiyad gaar ah waxaa heshiis isla gaarnay shirkadda CCECC ee laga leeyahay dalka Shiinaha inay fuliso dayactirka wadooyinka waxaan 24kii bishaan Garowe noogu yimid madaxa shirkadda ee Geeska Afrika waxaana ku heshiinay in dhismuhu bilowga bisha November ee nagu soo aadan dhanka wadada Garowe Gaalkacyo waxa soo idlaaday kala bixidii Midowga Yurub iyo hay'adda GIZ kadib fashilkii ku yimid heshiiska hore waxaana wada hadal dheer kadib Midowga Yurub isla ogolaanay in loo qoondeeyo 6 milyan oo euro dhismaha wadada waxaana dhawaan la bixin doonaa qandaraas cusub ee dayactirka wadada Jalam Xarfo sidoo kale waxaan ka helnay qoonda dhaqaale oo dhan 14 milyan bangiga horumarinta Afrika oo lagu dhameystiri doono wadada Xarfo ilaa Gaalkacyo oo qorshuhu yahay in mashruucaas bilowga sanadka cusub ee 2020 waxayna dawladdu bixisay kharashkii dayactirka wadada leexsinka ah ee hadda isticmaalaan gaadiidka inta u dhaxaysa Buurtinle iyo Xarfo si ay u fududaado adeegsiga wadada Garowe iyo Boosaaso u dhaxaysa ilaa hadda waxaan ka helnay deeq hordhaca dalka Imaaraadka oo 2 milyan ku deeqay waxaan kaloo rajo weyn ka qabnaa dalka Shiinaha oo safiirkooda uu imaan doono 2 maalmood kadib waxaa kaloo furan oo inaan u raadino cid kale laakiin waxaan go'aan ku gaarnay inaan heshiiska la galno shirkadda si ay shaqada u bilowdo dhaqaalihii loogu talagalay annagoo aan u wadahayn sida aad ku cad sida kan Garowe ilaa Gaalkacyo dhaqaalihiisa inta badan laga helay African Development Bank iyo EU-da laakiin kan Boosaaso iyo Garowe waxaan rajo weyn ku qabnaa inuu dhameystirmo annagoo u yabo hidoono gudaha dibadda hadii la hayno waxaa socda dhismaha 11 wado 3 wado oo solar la gelinayo iyo dhismaha 2 xarumood dadweyne taas oo qayb ka ah horumarinta degmooyinka waxaa la bilaabay dhismaha wadada Galgala gasha oo ah wada carrakaawo ah dhererkeeduna yahay 7 kilomitir waxaa la filayaa inay u dhammaato sida ugu dhaqsaha badan waa meeshii ugu adkayd ee Galgala in la gaaro ee caqabada ku ahayd ilaahay idinkiisa waxaan rajaynaynaa in taasna fududaato si ammaanka ay qayb uga qaadato waxaa sidoo kale socda dhismaha wadada la fogorayo oo dhan 5 kilomitir waa caqabada in la gaaro magaalada Caluula saldhigga u ahayd wadadaas waxayna maraysaa meel gabagaba waxaa dhammaad maraya wadooyinkaas hore waa carrakaawooyin waxaa dhammaad maraya 7 kilomitir oo dhismaha wadooyinka laamiga ah oo laga dhisayo magaalada Garowe iyo Galdogob waxaa socda dhismaha wajiga labaad ee dekedda Garacad dawladdu waxay ka shaqaynaysaa in maalgashi dheeraad ah ay u hesho sidii si degdeg ah loogu dhamayn lahaa dekeddaas taas oo wax badan ka soo kordhin doonta dhan dhaqaale dhan shaqo abuur Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya waxaa dhowr bari ka hor booqday shirkado isugu jira oo ka socda dalka Hindiya ayaa waxay booqdeen magaalada Garacad iyo dhammaan geeyga Puntland ilaa iyo Boosaaso iyo Sanaag intaba
oo indhaindhayn ku sameynaya mashaariicda ay maalgashan karaan kulanaa xalaq la qaatay waxay runtii aad ugu faraxsanaayeen meelihii ay mareen waxay rajo weyn ka qabaan in iyaguna maalgashiga ay bilaabin doonaan waqti dhow haddii ilaahay waxaan bilownay dhismaha iyo casriyeynta garoonka kubadda cagta ee Gaalkacyo iyo Garoowe waxaa sidoo kale la dhammaystiray qiimaynta dhismaha iyo dayactirka garoonka kubadda cagta ee Boosaaso oo dawladda Puntland bixin doonta 200,000 oo ka mid ah 500 oo horumar lagu qiimeeyay mudanayaal iyo marwooyin Puntland waxay muddo dagaal kula jirtay argagixisada ku dhuumaalaysanaysa buuraha Golis haddaba si wax looga qabto loona cirib tiro falalka ay geystaan argagixisada loona sugo xuduudaha Puntland waxaan xooga saarnay tayeynta hay'adaha amniga cadaaladda iyo sirdoonka kuwaas oo sidaan horay u soo sheegnay ay hadda u socdaan tababarro kala duwan Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya waxaa ka jira shaqo la'aan baahsan oo ay wajahayaan dhalinyaradeenna taas oo marar badan ku kallifaysa dhalinyaro badan in ay waddanka ka cararaan waxaan xooga saaraynaa maalgelinta socota soo jiidashada maalgelinta dheeraad ah iyo sare u qaadida xirfadaha dhalinyarada si aan uga faa'iideysanno khayraadka aynu haysanno taas waxaan dhinac wadnaa in aan abuurno ilo dakhli oo cusub waxayna ku guulaysanay in aan si joogto ah u bixinno mushaharaadka iyo kharashka dawladda mudanayaal iyo marwooyin waxaan in muddo ah caqabado ka jireen tirada iyo tayada shaqaalaha rayidka ah ee dawladda waxaan ku guulaysanay inaan dib u eegis lagu sameeyo liiska shaqaalaha dawladda iyadoo la ogaaday tirada rasmiga ee shaqaalaha dawladda u shaqayn karta inta howlgabka ah iyo inta dhimatay waxaan bilownay hannaan dib u habaynta darajooyinka ee heerarka mushaharoodkooda shaqaalaha dawladda oo aan dib loo eegin tan iyo aasaaskii Puntland 1998 dib u eegidda tani marka ay dhammaato waxaa la iswaafajin doonaa darajada shaqaalaha iyo heerka mushaharka ee ku habboon dhinaca kale si sare loogu qaado wax soo saarka shaqaalaha dawladda waxaan dib u howlgelinay maxadka tababarka shaqaalaha dawladda kaas oo bixin doona tababarro gaagaaban iyo kuwo waqtigeedu dheer yahay mudanayaal marwooyin mudana guddoomiye waxaan u rajaynayaa kalfadhiga guul waxaan diyaar u nahay inaan idinla wadaagno wixii faahfaahin dheeri ah aad uga baahataan shaqooyinka qabsoomay kuwa socda iyo kuwa qorshaysan intaba ugu dambayn waxaan si rasmi ah inoogu furan kalfadhiga 45aad ee wakiilada Puntland waad mahadsantihiin بسم الله الحمد لله إن شاء الله فريتانكي قلها وكيل لدى دولة بوتسانا شنيا فرتناد سير رسمي وين غفر مي ومدحوين وفري هذه بان نقوم هاد علينا dadkii ka soo qayb galay dhammaantood qaybaha kala duwan oo ay kala ahaayeen iyo magacyaday kala yihiinba aad baan ugu mahad celinayaa waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo hay-adihii ama qaybihii hadal jeedinta halkan ku lahaan jiray hadda ka hor oo maanta aanu ka cudur daaranayno insha allahu inaanu soo koobnay si hawshu inoogu fududaato waqtigana aynu u beeqaamino waxaan leenahay aad iyo aad baad raali nooga ahaanaysaan waana mahadsantihiin ka soo qaybgalkiina waxaan insha allahu intaa uga gudbaynaa mudanayaasha sharafta leh haddii aanay jirinin dee wax kale oo inaan iska fasaxno madaxweynaha cawl haye ma mudane ma su-aal baa weydiinaysa madaxweyne
mudanaha insha allahu waa kusoo dhaweynaynaa inoona kooba insha allahu muddo badanna hadda waa la soo fadhiyey waana insha allahu xilligii gabagabadaha baynu maraynaa kusoo dhawo mudana inoona koob insha allah waana mahadsan tahay fadhiiso 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 waxaanad xaqu lahayn ha samaynin xeerosaadkaaga akhri fadhiiso mudanayaashu xaq bay u leeyihiin inay su-aalo weydiiyaan madaxweynaha cid u diidi kartaana ma jirto waa xuquuq dastuuri ah saaxiib adiguna golaha xildhibaan baad ka tahay raalli ahow mudane adoo sharfan waxaanu kaa codsanaynaa inaad ilaalisid anshaxa iyo asluubta golaha waana mahadsan tahay odayaashana waxaan ka codsanaynaa inaad koobtaan maanta waa maalintii furitaanka inaad inoo koobtaan inoona ururisaan insha allahu haddaad madaxweynaha u baahantihiin aanu xilli kale u yeedhanno wixii su-aala weydiinaya waana mahadsantihiin aad iyo aad baan umahadsantahay guddoomiye guddoonka golaha wakiilada mudanayaasha golaha wakiilada madaxweynaha golaha xukuumadda iyo dhammaan martii sharafka waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu mudan madaxweyne waxaad xilka haysay 9 bilood wejiga dhabta ah ee xukuumadda hogaamisaana waxaa la moodaa inuu ku jiro maalmihii ugu dambeeyey muddaxileedkaaga waxaa 9kaas bilood burburay kalsoonidii bulshada dhaqan ahaan siyaasad ahaan iyo akhlaaq ahaan waxaa bilowday kacdoonno bulsho oo dowladda lagaga soo horjeedo waxaa dadku walwal ka qabaan badqabka jiritaankooda waxaa ugu dambeeyey masaajidadii oo bilaabay inay qunuudaan cabsi darteed sidaas daraaddeed mudane madaxweyne maadaama adigii khilaafka adiga madaxweyne ku-xigaankaagu soo noqnoqday isaguna oo uu yahay mushaakil dadka niyad xumi ku sii abuuray in lama habboona adiga iyo madaxweyne ku-xigeenkaagu inaad xafiiska bannaysaan si aynu u badbaadinno bulshadeenna inta aan baarlamaanku jawaab ka bixin dareenka bulshada ay matalaan aad iyo aad baa u mahadsan tahay mudanayaal waxaa weeye idinkoo sharfan madaxweynuhu waa madaxweynihiinnii su-aalaha aad weydiinaysaana ha ahaadeen su-aalo hufan oo sharfan oo aan personal attackna lahayn dalka iyo dadka maslaxaddiisana ah saasaan codsanayaa bliis insha allah bismi illaahi raxmaan raxiim waa koobaynaa labadaas su-aalood baan u dayn doonaa insha allah mudanayaal iska bismi illaahi raxmaan raxiim bismi illaahi raxmaan raxiim waan u mahad celinayaa xildhibaanka hadlay waana qadarinayaa habka maamulku u socdo in ajandaha baarlamaan baan ahaan jiro baarlamaanku ajandaha inuu ku socdo weeye laakiin dooddu inaad halka ku furtaan maanta aad baan ugu faraxsanahay bulshadii xooggeedii joogtay labeenteedii xaqiiqda marka loo hadlo dadka dalka xogtiisa ka hayo ma aha baarlamaanka oo keliya dalka xogtiisa waxaa haya dadka reer puntland oo dhan markaan xil ka qabannay meeshuu dalka joogay waad ogtihiin maanta waxa aan sheegayno ma aha hadallo warqado ku qoran waa xaqiiq dhab ah oo jirta amniga meelihii ugu darnaa waxaa ka mida magaalada boosaaso waxaan filayaa dad fara badan oo mas-uuliyiinoo halka fadhida inay boosaaso ka yimaadeen waxaan ka rabaa cawil inuu caddayn dhaba keeno meesha amni darro darteed loo qunuuday masaajidka laga qunuuday jawaabtiisaa laga rabaa 1 2 waxaa dhulka sanaag oo dhan boqolkiiba 99 marka laga reebo magaalo yubba iyo in yaroo la mid ah gacanta puntland soo gashay muddadii aan xilka haynay waxaa maanta la joogaa oo wasaaradihii dawladda oo dhan joogaan magaalada buuhoodle oo markaan xilka nimid khalkhal abni ka jiray iyo gacan ku haynta dawladda oo maqnay waxaa la sameeyey 4 xarumood oo ciidanka lagu tababaro iyagoo aan lahayn hal xero oo xataa aanan dayr lahayn waxaa maanta ku jira xerooyinka tababar ku socdo 520 xerada xorgoble oo maalinta talaadada aan furayno waxaa lagu guulaystay degaankooda in si daah furan loo furo oo dadka oo dhan ay si midaysan uga shaqeeyaan
waxaa isbeddel ku dhacay sumcaddii iyo horumarkii puntland dhinaca dhaqaalaha 7 bilood 8 bilood aan joognay mushaharkaan bixinaynay cawil oo ka tirsanaa maamulka hore agaasinkiisa waxay ku guul daraysteen inay bixiyaan mushaharooyinka waxaan caddaynayaa inaan isoo taagnay waxaan ka codsanaynaa inoo ilaaliyo xasiloonida waxaan caddaynayaa inaan ishortaag ku samaynay habka ay doonayaan xildhibaano farkutirisa inay dawladda maamulkeeda ula wareegaan oo iyagu ay rabaan inay determayn ku sameeyaan waxaan runta u sheegayaa hadalka uu ka hadlay gudoomiye su'aashayda ha ka jawaab madaxweynuhu meel kalu marayaa hadal mareed mudane hadalka mareed baad weydiisay waad aamusaysaa nidaamka dawladnimada haddaadan raacin mas'uuliyaddeeda adaa qaadi doona dawladnimadu waxay u baahan tahay in la ilaaliyo uma baahna in ashuun lagu addimo ma ahin nin lagu cabsiin karo in aan waajibkayga aan garan waayey mana ahin nin loo sheegi karo danta iyo dowga dawladdan ay dooratay in aan ku dhaqdo waxaan rajaynayaa shacabka puntland inay wakiil ka noqdaan horumarka dalkan u socno waxaan leenahay mawaaqif siyaasiya waxaan leenahay mid amni xukuumaddana annagaa mas-uulga madaxweynahana u doorto ilaalinaya baarlamaanku waxaan rajaynayaa inay shaqadiisa aqoonsadaan waad mahadsantihiin fadhiisto hala fadhiisto